iyo ra'iisul wasaareyaal badan oo xaafadana oo khaatumo la soo noolaa xilliyadeedii iyo duruufaheedii ayaa horta aniga igu horreeyay oo saas maa haddii qaarkood intay warqad qoreen maalin haygaada kuwaas hadday intay warqad qoreen ay dhaheen khaatumo waan aqoonsanaynaa haddana ay ka daba tagaan ay jeexjeexeen qaarkoodna ay ku adkaatay oo ay dhaheen war waa su-aal adiga naga daaye anugu horta warqadiina waa qoray horta anugu warqadiina waa qoray mana jeexjeexin axmed macalin fikiro imoo dhahay sheeg su-aashiina waa ka jawaabay waa aniga caawa dhextaaga marka waxaan leeyahay khaatumo oo soo fadhiisataa NCC waxay soo kordhi doontaa caqli iyo talo markhaatiga nool waxaan rabaa SNC waxay soo kordhi doontaa khaatumo waxay igu soo kordhi doontaa Soomaaliya igu soo kordhi doontaa caqli iyo ciidan iyo maskax iyo sharaf iyo karaamo iyo midnimo ay igu soo kordhi doontaa Soomaaliya waa mid meel kastoo joogaan dadka Soomaaliyeed waa dad walaalo oo mid ah meel kastana waxaa calan u ah calankaas buluuga ah gobollada waqooyi oo ay magaalada Hargeysa kow ka tahay oo ay tahay magaalada ugu qiimaha badan magaaladii calankan laga taagay dadka reer Hargeysa ee joogaana aan hubo inay yihiin dad aad u jecel laakiin taariikh laga yaabo inay qaldantay u baahan in la soxo oo qaranjabkii keenay in meeshii calanka laga taagay haddana laga dejiyo qaranjabkiina u dhacay ka mid tahay waxaan rajaynayaa in ay ogaadaan carabtu waxay dhahaan laa yasixu ila saxiix waxa saxda ah unbaa saxiixa waxa qaladkii weliga hadduu joogo qaldanaan kala qaybsanaantu waa qalad midnimaduna waa sax ayadaana asala ayadaa la isugu imaan doonaa ayada ayuu khayrku ku jiraa shartuna tafaruqa iyo kala tagga ayay ku jirtaa waxaan ugu yeedhaynaa dhammaan dadka walaalaha ee magaalada Hargeysa ee qiimaha badan ay ugu horrayso midnimada ayagaa midnimada u soo aasay ayagaana ka mid ahaa dadkii hormuudka ahaa calankuna meeshaasuu ka istaagay markii ugu horraysay deedna wuu ka soo faafay meeshii uu ka istaagay ee ka soo faafay baan rabnaa haddana mar kale asagii oo dheerar badan insha Allah inuu ka istaago waxaan rajaynayaa inay ogaadaan walaalaheed khaatumo state ama khaatumo oo calankii buluug ahaa ee la wada lahaa ku soo noqotay micnaheedu ma aha inay isnaceen inay kala fogaadeen midna ma aha bal waa jidkii saxda ahaa ay ku soo laabatay marka hadday jidkii saxdaa ku soo laabatay kullina waa lagu qarin doonaa insha Allah jidkii saxdaa lagu soo laaban doonaa waxaan diyaar u nahay wixii qaldamay eena anagu qaldin wixii qaldamay anagu qaldin kuwii naga waaweynaa naga horreeyey ay qaldeen hadday hadduu qaldamay qalad baa jira dabcan wuu jiraaya hadduu qaladkaas waxaan diyaar u nahay anagu inaan saxno waxaan diyaar u nahay walaalada inaan la fadhiisanno waxaan diyaar u nahay inaan u tagno waxaan diyaar u nahay inaan u tanaasulno waxaan diyaar u nahay in aan consenska iyo waxyaabahay dareemayaan oo dhan inaan si nabada oo walaaltinimo oo midnimo ah kula xalino oon ku xalinaan rabna waxaan rabnaa colaadda dhacday ee halkan ka dhacday
wixii dhacay waa tegey waxa soo socdaa muhiim ah in xoogga la saaro waxay noo sheegeen noo muujiyeen noo caddeeyeen culimiye caamo madax gabdho wiilal dhammaan dadka reer khaatumo inay ayagoo weliba sheeganaya wax badan haddana inay diyaarayeen liqaan in ay ka horumarinayaan midnimada iyo nabadda waxaan rabnaa in lala qaato dowladda federaalka ee soomaaliya waxay hogaaminaysaa faylkaas nabadda iyo midnimada waxaan rabnaa in wixii dhacay laga dhaqtamo la xalliyo soomaali isdisha soomaali islaysa xiise uma qabno marka aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin dhammaantiin mar kale iyo mar kale waan u mahadcelinayaa runtii maamulka madaxdiisa iyo hoggaanka dhaqanka iyo dhammaan shacabka sidaad noo soo dhawayseen waxaan leeyahay soomaaliya ha israacdo midnimadu ha waarto soomaali ha walaaloodo colaadu ha dhammaato midnimaduna ilaahay idankiis dhammaan geyigeenna dib ha u soo laabato cadow oo dhanna oo igu horreeyaan argagixisada ilaahay hanaga qabto aad iyo aad mahadsantihiin mar kale dhammaantiin waxay u laabaasan tahay